السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته all people وين سلامي وعبد الوهاب دار حاشي oo markaa aad ugu baratay inuu soo jeedo barnaamijyada ku saabsan Samsung-ka maanta barnaamijkeena daawadayaal wuxuu ku saabsan yahay telefoonka Samsung-ka ee S2-ga ah mo telefoonka lamaan waa S2-ga cashir ku saabsan maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay si maqalku u saaran codka oo jar lahayd uu qofka codka maqalka uu dhegeysan ama muuqaalka codkiisa looga jaro haatan waxaan tegaynaa galeriga muuqaal ayaan shidaynaa ujeedaan cod ayaa saaran muuqaalka codka waad dhegeysan kartaa haatan aan imaano muusiga qur-aan aan daaraynaa waad maqli kartaa hadda qur-aanka iyo wixii muuqaalka marka codka saaran waad dhegeysan kartaa si looga jaro marka codkaas iyo saaran muuqaalada ama codka caadiga ah waxaan tegaynaa kow meesha setting marka settingska ayaan ku dhufanaynaa waxaan tegaynaa my device kabacdi waxaan tegaynaa meel ku qoran tahay calaamada buluga ee saartay accessibility accessibility magaatan hoos ayaan usoo baxaynaa waxaan imaanaynaa meel ay ku qoran tahay turn off all sounds calaamada buluga ee saaran tahay waxaan saaraynaa tig calaamad saxda ah haatan ma maqli karno cod saaran muuqaalka aan balaan tagno muuqaalka hadda waa kana hadda cod ma lahan muuqaalka keliya ayaa meesha taagan aan tagno muusiga ma dhegeysan karto hadda qur-aanku waa daaran yahay laakiin ma dhegeysan kartid sababtana waa baalkii oo markaa turn off ayadoo hadda maqalka saaran ayaan soo furaynaa sida oo qaadmay my device tag kabacdi accessibility tag kabacdi waxaan tagaynaa meel ay ku qoran tahay turn off hadda tig wuunu saaran tig haddaan ka qaado qur-aanka ayaa shid maayo waad farteenayaa u malaynayaa inuu hadda tig ka qaadmay markaan tig ka qaadmay inuu codkii soo tufo marka waa si fudud marka codka oo jar maqaladaada ama muuqaaladaada waa cabdiwahaab daari xaashi daawadayaal oo markaa jecel inuu mar walba dadka usoo dayay casharada markaa ku saabsan android-ka waa markaa waxaan idin leeyahay cashir kale oo xiiso badan wassalaamu calaykum